السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي سو دواده ومر kale iyo barnaamij kale iyo maalin axada 29 bisha June 2025 barnaamijkeenan maanta insha Allah taala waxaan ku eegi doonaa Iran oo qarka u saaran inay soo iibsato diyaaradaha laga daba dhacay ee iska leeyihiin Chinese-ka ee loo yaqaano J-10C. Iran ayaa waxa ogtiin inay la gashay dagaal culus wato hawadeeda kadib markii ay caddaatay in Israa'iiliyiintu ay iska soo gali kareen hawadooda dhankay doonaanba ay ka soo galayeen say doonaan ay uga dhaqmaayeen. Marka waxa Iran ay bilowday in ay gorgortan la gasho wadanka China kuwaas oo ay rabaan inay ka soo iibsadaan diyaaradda loo yaqaano J-10C. diyaaradan ayaa waxa ay awood u leedahay in ay hawada sare kula dagaalanto diyaaradaha cadowga dagaalka loo yaqaano dogfight-ka oo ay hawadaas sare ka tuuri karto diyaaradda kale. waxa kale oo ay awood u leedahay in ay qaado gantaalada lagu hago jiheeyaha ama GPS-ta ama precision-ka loo yaqaano. sidoo kale waxa ay awood u leedahay gantaalka dheereeya ee PL-15-ka in ay qaado surface to surface and air defense system way noqonaysaa hawada ay ka difaaci kartaa diyaaradaha kale ee dalka ku soo xadgudbay xuduudaheeda. waxa kale oo ay leedahay oo xambaarsan tahay radar aad iyo aad uga dhuuman kara radarada cadowga ay weerarayaan oo ma arki karo by the time ay soo gaaraan diyaaradda ay soo gaarto hawada wadankii ay rabtay inay gasho radarka way u goyn kartaa sida F-35-ka oo kale baa loo isticmaalaa. marka Iran ayaa isku dayday 150 xabo hadda ka hor inay ka soo iibsato wadanka China taasna waxa ay ka socon weysay China oo ka codsaday ku adkaystay in Iran ay lacag cash ka siiso diyaaradda. Iran ayaa waxa ay weysay lacag cash maadaama cunaqabatayn dalka uu saaran yahay muddo ku dhow 50 sano. lacagtaas Iran ayaa waxa u soo bandhigtay China in ay kaga iibsato diyaaradahaas 150 xabo hadda ka hor ay kaga iibsato gaaska dabiiciga oo Iraniyiintu ay leeyihiin iyo saliidda dalkaas Iran laga soo saaro. China ayaa arrinkaas masuugay oo diiday. taasna waxay keentay in Iran ay u weecato dhanka Ruushka ayaa waxay ku leeshiisay inay ka soo iibsato 2022 diyaaradaha Su-35-ka la yiraahdo ama Su-35 oo ah kuwa ugu dambeeyay oo la tartanta diyaaradan Mareykanka ee F-35-ka. diyaaradahaas ayaa waxa iyana dealkaas waa shaqeyn waayay waxaana lagu balansanaa in bishii 3 2023 loo keeno wadanka Iran hase yeeshee taasna ma aysan dhicin. Iran ayaa iyadu waxa la sheegay in hadeer ama la cadeeyayba ciidamadeeda cirka ay ku qalabaysan yihiin diyaarado qadiimi oo badankood Mareykanka uu siiyay ama ka iibiyayba 80yadii iyo sidoo kale diyaaradihii Ruushka uu sameyn jiray MiG-29. waxaa la sheegay la xaqiijiyay in diyaaradahan F4 Phantom-ka diyaaradda la dhaho ay ka haysato 64 xabo. F5-ka ama F-Tiger 2 oo isna Mareykanka uu sameeyo waa hore sameyn jiray oo 35 xabo ay ka haysato. F-14 diyaaradda la yiraahdo Tomcat 41 xabo ay ka haysato. waxa kale oo haysata 18 xabo oo MiG-29 waxba hadeer diyaaradahan waxay shaqeyn jireen 80yadii iyo ilaa 90yadii bilowgoodii bay qatar ahaayeen. laakiin hadeer waxa hadii la damco in la kiciyo hataa waxa ay la kulmeen baa la yiri iyagada oo gacanta ku haysa oo si fiican uga taxadartay in hadana waxay la kulmaan baa la yiri accidentiyo ay ka dhacaan. marka wax hadda ay ka tarayaan fagaaraha dagaalka ma jirto. marka waxay isku dayeen inay hadda soo iibsadaan diyaaradahan cusub ee iska leeyahay Chinese-ka waxaana Iran ay u dirsatay wadanka China mas'uuliyiin ka socda iyada dalkeeda kuwaas oo kala soo xajoonayo sidii ay u heli lahayd at least 35 xabo oo diyaaradahaas Chinese-ka uu soo saaro. diyaaradahan ayaa iyagu wacdara ka dhigay xilligii dagaalka Pakistan iyo ay galeen India. diyaarada wacdara dhigay ayay noqdeen oo soo caanbaxay.
waana diyaaradaha hadeer laisku laynayo kadib markii ay cadeeyeen in hataa ay ka awood badan yihiin kuwa uu soo saaro Faransiiska. Iran marka waxa u muuqatay in maadaama aysan haysanin baa la yiri Air Force ama ciidan cir oo ama qalab cir oo ku filan difaaca cirka, waxa ay samaysay in ay xoog u isticmaasho gantaalaha, xoogana ay saarto intii maadaama cunaqabateen ay saareedo diyaaradahan aysan soo iibsan karin inay hesho gantaalo ay isaga dhiciso Israel haddii mar un ay soo weerarto. taas ayaa wacdara ka dhigtay gantaalaheeda ayaa wacdara ka dhigay dagaalkii dirirtii hadda u dhaxaysay Israel iyo iyaga, dagaalkii 12 maalmood kullin waa wada arkayseen wixii ay gantaalo ay tuureysay Iran. marka balankan ayaa waxa la rajeynayaa in uu Chinaha u shaqeeyo iyo Iran, maadaama Chinaha uu yahay wadanka kaliya oo iibsada natural gaska iyo saliidda dalka Iran, cunaqabateyn isaga oo aysan ku soo rogaynin reer galbeedka. marka Chinaha iyo Iran waxay filayaan in arrinkan uu soo dhamaado. waxa kale oo jira Su-35kii laga gadi rabay Iran oo ay kula heshiiyeen dalka Ruushka, Algeria ay u wareejiyeen Raashiyaanka, kuwaas oo halkaas la geeyay. diyaaradahaas Su-35 ka ah Algeria ayuu ka iibiyay Ruushka, meeshii uu u keeni lahaa Iran xaggaas ayuu u weeciyay, sababtana lama sheegin. marka Iran ayaa waxay isku diyaarinaysaa in dagaal kale mar kale ay la gasho wadanka Israel, waana cadeymaheediina way soo ifbaxayaan oo waxaad moodaa in Netanyahu uusan ka quusan in mar kale uu dagaal rogaal celis ah uu ku qaado Iran, isaga oo tijaabiyey awoodooda isuna soo diyaarinayo. ninkii seexdaas Saciid Dibi dhalay Iranna waxa ay bilowday in ay saaxiibadeeda dhow ay la ka raadsato diyaarado iyo wax ay u isticmaasho inay hawadeeda ku difaacato, maadaama hawadeeda ay noqotay halaq mareen. waxaa intaa dheer in Chinaha oo la sheegay in uu ku caawiyey wadanka Iran qalab ogaanaya waxyaabaha lagu jaajuuso dalka. qalabkaas ayaa waxa uu sheegayaa baa la yiri meelaha ay u yaalaan Mossadka ama hay'adda nabad sugidda sirdoonka Israel, meelaha ay qalabka u yaalaan iyo qolyaha ka shaqeeya oo operate gareeya ayaa waxa lagu ogaaday baa la yiri. waxa uu ku ogaanayaa waxa lagu ogaanayaa qalabka hadda Iran ay soo qaadatay. marka dagaalkii inuu dhamaaday waa la moodayay, laakiin hase yeeshee uma eka mid soo gabagaboobay oo Netanyahuna waa soo diyaarinaya oo soo xidhiidhanaya. Iranna waxay isu diyaarinaysaa sidii ay hawadeeda mar kale ay uga difaacan lahayd wadanka Israel haddii dirir kale ay ka dhex qaraxdo labada dal. intaas ayaan rabay inaan idinka dabageeyo. hadduu Ilaahay idmo haddaad nagu cusub tahay subscribe to the channel, haddaa hore noola joogtayna like and share the video insha Allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.